Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaad casharkeena shanaad ee aan ku baraynay HTML-ka iyo CSS-ka. Marka hore haddaan channelka subscribe saarin, subscribe soo saar. Maanta waxaan ka hadli doonaa waxa la yidhaahdo CSS. CSS waa luqad lagu qurxiyo, laguna design gareeyo, laguna style gareeyo dukumentiga HTML-ka. Shaqada ugu badan horta markii website la dhisayo waxaa qaadan doonta CSS-ka. CSS-ku waxaa laga soo gaabiyey cascading style sheet. Marka CSS-ku mostly waxa wax lagu fahmo waxa ugu fiican by action inaan ficlaan u sameyno markaas aan fahmeynaa. Marka hore qeexitaan guud CSS-ku waxaa lagu qurxiyaa ama lagu design gareeyaa ama lagu habeeyaa web page-keena. Hadda marka HTML ku qornay sidaan uu egyahay waxaa laba bardhigi doonaa marka aan CSS ku xirno sida uu noqon doono kan. CSS-ku waxaan dhahnay waa styling-ka ama lagu qurxiyaa dukumentigan. Hadda CSS isticmaalayno fartaan ugu yar ayaa ka dhigi karnaa mid ugu weyn, midaan ugu weyn waxaa ka dhigi karnaa mid ugu yar. CSS-ku waxaa lagu qaban karaa shaqo aad u weyn. Marka CSS-ku saddex qaab ayaa lagu soo xiraa dukumentigeena. Saddexda qaab waxaa la kala dhahaa external style sheet, internal style sheet. Marka saddex qayb ayaa lagu soo xiraa dukumentigan. Waxaan dhahnay CSS-ka inaan CSS isticmaalno waxay ku xiran tahay inaan file samaysano oo CSS la yiraahdo oo aan ku soo xirano dukumentigan ama dukumentigan dhexdiisa inaan ku samaysano CSS. Marka saddexda qayb ee CSS-ka waxaa la kala dhahaa external iyo internal iyo inline. Externalka waxa waaye inaan file samaysano. Saddexdan sib waa samayn doonaa laakiin waxaa ka bilaabi doonaa inline-ka. Inline style sheet-ku iyo internal style sheet-ku professional ma ahan oo haddaa isticmaalayno mostly waxaa la isticmaalaa external style sheet-ka oona ka functionality badan. Waana sheegi doonaa mid kastaba wuxuu ku xun yahay iyo wuxuu ku fiican yahay. Marka waxaa ka bilaabi doonaa inline style sheet-ku. Hadda heading ugu horeeya ayaan color-ka bedelaynaa. Marka color-ka bedelayno markii oo CSS-keena aan ku isticmaalayno dukumentigan HTML gudihiisa waxaa jirto property la yiraahdo style. Waxaan leenahay stylable color red. Color-kii wuxuu noqday guduud. Color-ka waxaa ka dhigan guduud. Style-kan waxa waaye property style-kan property waaye oo color-kan waxa waaye inaan rabno inaan color-ka bedelno h1-kan color-ka aan siinana red uu yahay. daarna blue ka dhiganaynaa midkaan doono hadda blue noqdo. Inline-ka waxaa loo isticmaalaa markaad rabtid inaad wax uga bedeshid hal sadar bis ama halka line aa gelino bis aa bedelmaayo. Halka line aa gelinay bis aa bedelmaayo. Control Z iska Visual Studio markaa falaart ku edisid wuxuu kusoo bixinaa optiono badan oo qofka bilowga inuu ku wareeray macquul tahay. Marka inline style sheet-ku waxa waaye dhahnay in isla sadarkaas bis wax looga bedelo. Marka waxaan isticmaalaynaa internal style sheet-ku. Internal style sheet-ku markaad wax ku qorno intuu noo soo galay comment ayaa ka dhiganaa HTML-ka. markaa comment wax ka dhigi rabtid waxaa la dhahaa calaamad tag aa furanaysaa midaas aa furaysaa kabacdina wax baa furaysaa comment ku noqonaa. Then comment waxaa la dhahaa wixii meeshas lagu qoraa lama ran gareynayo ama browser-ka lagama soo bandhigayo. Markaa save dhahno markaasaa caadi waayo. Marka comment-ga HTML-ka waxaa loo isticmaalaa sidan calaamad anchor tag-ga calaamad caji baa dhahnay oo shift 1-kaas la qabanaysaa iyo minus then comment meesha wax kasta ku qortid ma la soo bandhigayo. Haddii hadda aan comment ka dhigin ka tirno dukumentigana way kasoo muuqanaysaa. Marka wixii information oo kale comment laga dhigtaa
si aysan documentigaada kaaga soo muuqanin. Marka aan u gudubno internalkeena. Internal CSS waxaa la yidhahdaa horta waxaa lagu xiraa headka oo headka la geliyaa. Mostly headka wuxuu qabtaa markii external links markaa soo qaadanayso sidoo kale headka shaqo ku leh everything. Marka bodyga shaqadiisa waxay tahay in caloosha documentigana waxyaabaha aan rabno inaan qorano inaan kusoo bandhigano bodyga dhexdiisa, halka headkana uu qabto information muhiim oo kale sida linkisyada lagu soo xirayo webpagekeena kale waa gaari doonaa waana fahmi doonaa insha Allah. Marka hadda waxaan rabnaa inaan internal CSS sameyno. Internal CSS markaan sameynayno waxaan sheegaynaa tag style, waan dhahaynaa inaa taggan dhexdiisa wax lagu qoraa inay style yihiin oo CSS yihiin. Marka waxaan sheegaynaa elementiga ama tagga aan rabno inaan style gareyno waa sheegaynaa. Hadda waxaan rabnaa h2 waa qoranaysaa. h2 markaa qoratid blogana furanaysaa. Blog waxaa la yidhahdaa caloosha inaad furatid waxaa la dhahaa Carrel brackets la yidhahdaa. Marka hadda waxaan rabnaa inaan h2 wax ka bedelno. h2 colorkiisa rabnaa inaan ka dhigno green oo kale. hadda ujeedin h2 colorkiisa wuxuu noqday green. Marka element kasto wuxuu leeyahay background color caadi ah. Color caadi markaan dhahno waa farta colorkeeda. Markaan dhahno background colorna waxay noqonaysaa background colorka maxaa la dhahaa fartaas backgroundgeeda colorka noqon doono waxaa dhahna black. jida backgroundgeeda wuxuu noqday black halka farta ay noqotay cagaar. soo haddaan rabno red guduud ka dhiganaynaa guduud noqonaa. marka coloriska waxaa u isticmaali karnaa qaabab kala duwan. marka waxaa jirto siyaabo badan oo kalarada loo isticmaalo, mar iyadoo lambar ahaan la isticmaalayo, marna iyadoo hadda sidaan rid caadi loo sheegayo. marka cashir dhanaa ka dhigi doonaa qaabka loo isticmaalo coloriska iyadoo oo tiro ahaan loo isticmaalayo iyo iyadoo oo loo isticmaalayo magac ahaan. haddana sida ugu fudud oo ku fahmi karno waxaa waa inaan magac ahaan u isticmaalayno. marka hadda waxaa sheegnay in inline-kana looga bedeli karo hal line, halka style-kana lagu soo xirayo halkaas aana ugu bedeli karno hadda haddaan dhahno comma h3 na ka bedel h2 na ka bedel. waxyaabo badan maxaa la elementiyo badan ama tags badan hal mar ugu wada bedeli karnaa colorka meeshaan. hadda commadan waxay sheegaysaa macnaha h2 comma h3 labaduba stylinkooda same ahaadaan ama Carrel bracketkan calooshan wax kastoo lagu qoraa waxay isbedel ku sameynaysaa labadan. Carrel bracketkan isbedel kasto ama qoraal kastoo lagu qoraa wuxuu bedelayaa ama wax ka bedelayaa ama janji ku sameynayaa labadan xaba aan soo qeexno. hadda waxaan dhahnay waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno bodyga. body waxaa la dhahnay taggan bodyga waa calooshan dhan ee documentiga. waxaan dhahnay tagga bodyga qabsana hadda waxaan dhahnay body Carrel bracketka furanay bodyga backgroundgiisa dhahnay inuu ahaado green. so waa ka hadda bodygeena dhan wuxuu noqday green. waxaan dhahnay body waxaa la dhahaa caloosha guud documentigana. so hadda haddaan dhahno maximize haddaan dhahno hadda waa kana caloosha guud ee documentigana minimize noo soo celi. marka hadda waxaa dhahnay marka bodyga dhan waxaa dhahnay bodyga colorkiisa dhan oo far kasta oo body ku dhex jirtaa waxaa rabnaa inay caddaan ahaataa dhahan color white. so kalarada dhan wuu isbedelin laakiinse midkan keliya muusan isbedelin. maxaa yeelay midkan waxaa isticmaalnay inline isticmaalnay oo waxaa dhahnay marka hore bodygu colorkiisa dhan cadaan laga wada dhigay, laakiinse markii oo tag loo yimaaday isagana style gooniya wataa oo dhan aniga oo maxaa la dhahay colorkayga blue waay stylekiisu marka qaadana. hadda hata tirno oo stylinkan aan ka tirno wuxuu la mid noqon doonaa kuwa hore oo iska tirno wuxuu la mid noqon doonaa kuwii hore. save haddaan control s
isagana caddaanka u qaatay. marka midda inoo dhiman waxay tahay in external style sheet lagu soo xiro oo css keena loo sameeyo documenti gooni ah oo documentigaas wax kaga soo bedelno. marka stylinkan taggiisa naga tir control s dhahno documentigana si suura kusoo noqdo. marka waxaa samaysanaynaa external style sheet wax la yiraahdo oo documenti gooni u samaysan doonaa aan kusoo xiran doonaa. marka waxaa iskala baxaynaa style .css waxaa dhahnay dot waxay qeexdaa dhahnay documentiga wuxuu yahay. hadda kan html wuxuu qeexayaa documentiga inuu yahay html. .css ne waxaa dhahnay waxay qeexaysaa ama ay sheegaysaa in documentigan uu yahay document css ah. so html keena waa kana, css keena waa kana, waxay ku kala jiraan laba documenti. marka hadda haddaan dhahno body aa qabsan backgroundgiisa haddaan dhahno background color labadaba waa dhigi kartaa, background waa kusoo koobi kartaa ama background color labadaba same waaye. waxaa dhahnay greenkiisa kusoo celi control s ma shaqeynayo sabab anaga waxaa ka dhignay documenti gooni ah ka dhignay css keena. markaa ka dhignay documenti gooni ah waxaa masti ah inaan kusoo xirno html documentigan oo lees baro oo la dhaho filekan file css waaye documentigan noogu dar wax kasta oo filekaas lagu qoraa meeshaan isbedelkeeda laga arka macnaha. marka waxaa soo gelinaynaa linkiga dheena taggan linkiga wuxuu noo suurtagelinaa inaan kusoo xirino linka css ah. marka filekanna waxaa sheegaynaa filekan wuxuu yahay. filekan waxaa dhahnay style sheet browserka uu sheegaynaa inuu filekan style sheet yahay. waxaa sheegaynaa haddana hrefkiisa ama referencegiisa meesha uu yaallo fileka ama magaciisa sheegaynaa. so marka fileka magaciisa waxa waaye style.css. so just markaa safe dhahno isbedelkii hadaayo qornay hadda waa aragnaa. marka maxaa yeele hadda waa kusoo xirnay hadaayo kuma xirnayn. hrefkan wuxuu sheegayaa fileka magaciisa oo fileka magaciisa inuu style css yahay. halka railkan uu sheegaya filekan typeka uu yahay style sheet inuu yahay filekan oo file edit oo style inuu yahay. so linkigan taggan linkigan wuxuu noo suurtagelinaa inaan isku xirino html keena iyo css keena. so external style sheetku waa midka mostly la isticmaalo oo caadiyan ah. oo marka external kuwa kale wuxuu ugu duwan yahay waxay tahay inlineka markaa ku qorayno oo isla lineka wax ugu bedelayno horta koodkeen uu folxumeyna markaad style ku qornay color meeshana waxay noqonaysaa qofka xataa markuu cusub uu ku wareera. marka inline style sheetka waxaa la dhahnay in tagga aan rabno laankiisa dhexdiisa aan ku qorno colorka inaan ku bedelno. midaasna waxay tahay koodkaada maxaa la tolo wareer badan ay ku keenaysaa. so internalkana waxa waaye waxaa loo isticmaali karaa bis halkan page, laakiin externalka waxaa ku edit gareysan kartaa ama ku install gareysan kartaa 10 page oo html ah ku wada xiran kartaa. waxaa ka wada maamulaysaa halkan style sheet waxaa ka wada maamulan kartaa documentiyo badan oo html ah oo mid walbaba waa ku xiranaysaa bis linkigan caadiga linkigan waxaa u sheeganaysaa bis maxaa la tolo stylekaada fileka magaciisa u sheeganaysaa oo magaca ku save gareyna style.css waaye. .css kan waxaa dhahan waxaa caddeynaya in fileka uu file css yahay, stylekan waa magaca la baxan. so halkan line wuxuu documentigan ku xirayaa filekan css-ka ayuu documentigan ku xirayaa. marka css-ka hadda waxaan tusaale iyo faham ugu soo qaadanayna bis qaabka la iskugu xiro css-ka iyo maxaa la tolo qaabka loo isticmaalayo guud ahaan gudaha u geli doona insha Allah. cashirka xigo insha Allah isku imaan doona. wassalaamu calaykum.